Fiidiyogan wuxuu ku saabsan yahay joornaalka weyn ee Mareykanka New York Times ayaa warbixin xasaasi ah qoray. New York Times waxay yidhaahdeen sargaal ka tirsan wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegay in 384 qof oo muwaadiniin Mareykan ahaa ka horna ku dhashay waddamo kale, dadka loo yaqaano naturalized citizen, dowladda Mareykanka ee qorsheynaysa inay kala laabato muwaadinimada Mareykanka ayagoo ku soo oogi doonto falal iyo dembiyaal ay galeen, kiisaskoodana hordhigi doonto federal judge goordhow. sidaa wada ognahay xukuumadda Trump sanadkii hore waxay qorshe ah waday in dadka naturalized citizenka ah, dadka waddamada kale ku dhasho, Mareykan yimaado, citizen noqdo, dadkaas in dad badan oo ka mid ah muwaadinimada Mareykan lagala celiyo. marka waxay qorsheynayeen bil walba 200 qof inay keeskooda soo bandhigaan, balse haddeertaan qorshihii ficil ayay u bedeleen. hadda 384 qof ayay gacanta ku hayaan, goordhowna maxkamadda ayay keeni doonaan 384kan qof oo ay rabaan inay kala laabtaan muwaadinimada Mareykanka ayagoo soo bandhigayo caddeyn rasmi ah dadkaasoo mutaysan doono in laga laabto muwaadinimada Mareykanka. su-aasha isweydiinta maxaa waaye, dowladda awood ma u leedahay inay kala laabato muwaadinimada Mareykanka dadkaas ama dadka natural citizenka? haa, tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafay 2025 8 qof ayaa laga laabtay Mareykan oo muwaadin Mareykan ahaa, naturalized ahaa, citizenshipnimadooda 8 qof ayaa lagala laabtay. tan iyo 90kiina 1990gii ilaa iyo haddana average san walba 13 qof oo keys ayaa lagala laabanaya. laakiin xukuumadda Trump waxay rabtaa mass mataqaanaa immigration revoke inay samayso oo dad badan ay kala laabato. kiisaskii ay soo daliishanaysaan waxaa waaye qofkan inuu markuu naturalized citizen noqday, muwaadin Mareykan noqday, dambi galay, criminal activity sameeyey, ama in applicationkiisii hore been uu ka sheegay markii interviewga laga sameynayey, iyo arrimo kale dembiyaal badan oo kale inuu geystay. marka dowladda waxaa laga rabaa laakiin caddeynta inay soo bandhigto, federal judgekana uu ku qanco. hadduu ku qanco dan federal judgeka ayaa go-aanka gaarayo, kabacdi waa laga laabanaya qofkaas muwaadinimada Mareykanka. gudaanadkii waanu ognahay Trump inuu Soomaalida ku kacsan yahay. marka 384kan qof mee qofaa Soomaali ka? allahu aclam. waayo haddii hadda lalahayo applicationkii horaa lagu laabanaya, qofka qaabka waddanka kusoo gala lagu laabanaya, been muu hadda kahor applicationkiisa ka sheegay, noloshiisii horaa la dabagelayaa, africa markuu joogay, qaabkuu Mareykanku imaaday, dee wax walbaa dhici karo. arrimo badan oo kala duwanna Mareykan waa lagu imaadaa. sidoo kale waxaa ku jirto in qofka asagoo natural citizen noqday dembi Mareykan haddana ka galay, ayadana waxaa laleeyahay waa lagala laabanaya, iyo arrimo kaloo badan. marka su-aasha isweydiinta maxaa waaye, 384 qof goordhow maxkamaddooda bilaabanaya, maxay kula tahay mee qofaa Soomaaliya yaa ku jiro? waa su-aal mudanna isweydiino. arrinkaa hadday sii socotana dee communitygan waxaa laga yaabaa dhib weyn inay u geyso, maadaama xukuumadda Trump madaxweynaha uu yahaba qofka ku koran Soomaalida, cunsuri ku dhegan Soomaalida, mar walba haysta Soomaalida, ku tilmaamo ereyo xun. marka maxaa diidaya inuu dhaho Department of Justice, wasaaradda cadaaladda Mareykanka, dadkaas kiisaskooda hala eego. bal arrinkan soo kordhay fikirkiina ka dhiibta. amaanaa la meel walbaa joogtaan.